daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran Xusni News kulan wanaagsan ku soo dhawaada warkeena. Shirkii looga arrinsanayay arrimaha doorashada oo dhawaan ku soo gabagaboobay teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa la filayaa dalka Soomaaliya inuu doorasho u dareero 60 maalin kadib oo laga bilaabayo maalintii uu shirka gabagaboobay. shirkan oo khudbadahooda ay ka jeediyeen madaxda dawladda dhexe, madaxda mucaaradka iyo kuwa gobolada ayaa dhammaanba taageero u muujiyay gabagabada shirkaasi qodobadii loogu wada hadlay. shirkan oo mid dhif iyo naadir ah marka loo eego shirarkii qabsoomay sanadadii la soo dhaafay ee kursiga fadhiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si guul ah ku soo gabagaboobay si lama filaan ah oo aan la saadaalin karin waliba. Gobolada ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa ku tilmaamay guul hordhac ah. Qabsoomidda shirkan soo gabagaboobay laguna guulaystay ayaa looga baaqsan doonaa midowga Yurub. ku laabto halkaasi ayaa looga baaqsan doonaa midowga Afrika wakiil uu soo diro Soomaaliya, wakiilkaasi oo dhexdhexaadin lahaa mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedyada. cadaadis iyo eedayn kastoo ka imaadi lahaa midowga Afrika ayaa laga baaqsan doonaa maadaama ay heshiiyeen dhinacyadii ishayay. walow aan xasuusano inuu iscasilay wakiilkii loo soo magacaabay arrimaha khilaafka Soomaaliya xalin lahaa. Dr. Mahama ayaana ku macneeyay iscasilaadiisa in wada shaqayntii uu u baahnaa uusan ka helin iyo soo dhaweyntii dawladda dhexe. walow mucaaradka ay soo dhaweeyeen wakiilkan ayaa sida la ogyahay dawladda dhexe aanay soo dhaweynin. wararkii dunida aan u gudubnay dawladda Sacuudiga ayaa mamnuucday in mikrofoonada masaajidda salaada lagu bixiyo. mikrofoonada ayaa aadaanka iyo iqaamada kaliya loo isticmaali doonaa kadib markii ay dhamaatana imaamka ma xiran doono mikrofoonka oo salaada ma bixin doono, qiraa'adana lagama dhex maqli doono. go'aankan oo uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha diinta ayaa ah kii ugu horreeyay oo dawlad islaam ah ay ku dhaqangeliso go'aan noocan oo kale ah. go'aankan oo dhawaan soo baxay ayaa la fili doonaa dawladda Sacuudiga in ay cambaareen kala kulmi doonto dawlado waaweyn oo muslimiin ah oo uu ka mid yahay dalka Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa jawaabtiisa la sugaya maadaama lagu aqoon jawaab aanan laga gabanin wax kasta oo dhaco si kastaba ha u xumaatee. madaxweynahan go'aanka adag ee dunida dhan ay ka yaaban tahay ayaa la filayaa go'aan adag iyo mowqif adag inuu ka istaago go'aanka Sacuudiga uu ka mamnuucay mikrofoonada masaajidda ee salaada lagu bixiyo. halka aad warkanina kala socoteena waa Xusni News. mar kale intaan hawada dib ugu kulmi doono waa anigoo idin leh salaada idin ma seegto. السلام عليكم ورحمة الله